soonka maalinta labaad ee bisha Dilxajja aan ku dhex jirno maanta ku bishaaraysta waa maalinta labaad ee bisha Dilxajja waa maalintii la aqbalay Nabi Yunus alayhi salaatu wasalaam ducadiisa sidoo kale isagoo hal sana Allah subhanahu wa ta'ala caabuday oo aan ilbirsi Allah subhanahu wa ta'ala ku caasin walaal haddii ay ku dhaaftay maalinta labaad ee soonka Dilxajja berito waa maalin saddexaad haddaba maxaa ku sugan maalinta saddexaad ee bisha Dilxajja waa maalintii la aqbalay Nabi Zakariya alayhi salaatu wasalaam ducadiisa haddii aad soonto Allah subhanahu wa ta'ala wax weydiisto Allah subhanahu wa ta'ala bidnillahi kariim ducada uu aqbalaya walaal gaarsii khayrka Allah subhanahu wa ta'ala muraadkaaga ha saalo inta muraad leh ha soomaan maalmahan khayrka badan waa maalmaha Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri wal yaal ashr so iska jir inaad markaa ku bixiso lacib iyo waxyaalahan faa'iido ku ahayn ka faa'iido waqtigaaga insha Allah sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma jiro amal ka wanaagsan ee la sameeyo maalmaha 10ka Dilxajja aan ka faa'iideysan walaalayaal khayrkana aan faafino meel fog gaarsii muuqaalkan waxa laga yaabaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu ajirkaasi insha Allah wadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin